nagu yiri Turaabi baa nagu yiri wasiirka arrimaha dibadda nagu yiri maxay isku haystaan Caydiid Cali Mahdi miyaynan ilma adeer ahayn miyaynan hawiye wada ahayn miyaynan hiraab wada ahayn isku daygii maalintaasi waxay qayb ka ahayd qaraxii la dhigay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf in lagu khaarijiyo dowladii Cali Maxamed Geedina lagu rido أنا واحد سعد نومي شيء أنت وقت كله مني علي عبد الفارح أيها وحيد حد يرى تهشين إنسان حي أول أنا نقول كي إنك سوى سنة هشين سنة ما هي هذا أنا واسو هشين إذا كانوا هشين إنسان سعد نومي شيء بركة تروين وحلا يري مركور إلا بقية طبعا حبنود ما إنسان هنا قاطع أيها وحيد هذا الماء مر أنا جو إسود دياري نايبو نلي يري وكقير جلينا SNA ahaan ayaa galabtii waxa yimid safiirkii masaarida iyo Xuseen Caydiid oo German ahaa Spice-ga ayaa waxay wada galeen shir kaligood shirkii ilaa iyo 2 saacadoodnimo 8 ama ayaa la isla wada gaaray fiidnimo 2 saac wixii ka dambeeyay waxaan leenahay geediga hala furo ma garatay beri socod ma jiro waa la baaqday بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku guda jirnaa wali barnaamijkeena imtixaanaha ee ku saabsanaa shirkii la qabtay 2000 ee Djibouti lagu qabtay oo loo yaqaano shirkii nabadeynta iyo dibdhiska dowladnimada Soomaaliyeed ee Carta waxaan wareysanaynay dadkii goobjooga ka ahaa oo xogta fiican ka hayay wixii meesha ka dhacay waxaan kaloo aan garanay in aanu waraysi la yeelano dadkii aan ka qayb galin oo banaanka ka joogay iyagana sidii ay wax u arkayeen waxaan maanta aan waraysi la leenahay xildhibaan hore Professor Maxamed Cumar Dalxa oo markaasi ka tirsanaa ururkii SNA xildhibaan professor soo dhawow marka ugu horeyso Professor Bafo adiga iyo waxreeb waa idin salaamaya salaamta islaamka ah si la mid ahna umad Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ayaan idin leeyahay dhammaantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana mahadsantahay waana dhowahay mudane xildhibaan hore Professor Dalxa waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in maanta aad noo timaado oo aan ka sheekeysano sidii loo arkayay maxaan ku raahdaa shirkaas Carta oo 2000 meesha lagu qabtay Djibouti la yiraahdo idinka markaas waxaad ka tirsanaydeen Spice-ga SNA baad ka tirsanaydeen mowqifka SNA muxuu ahaa markaas waa mahadsantahay Spice-ga SNA horta wuxuu ka koobnaa ururo kuwa hubeysan iyo kuwa aan hubeysnayn annaga ururadii aan hubeysnayn ayaan ka mid ahayn laakiin la bahoobay siyaasadaha xaggooda iyo marka geedi socodka hadba maartay meel maartay dhalinyaro fara badan oo berigaas aan joogin baa maantay soo gashay saaxadda soo gashay oo wax badan raba inay ka ogaadaan taariikhda SNA kelimad ahaan maxay kalimaadkee ka koobnay noo sheegtay ururadii ku jiraan haddaad noo tilmaami kartid maarta SNA kelimad ahaan waa Somali National Alliance ay ahayd ay ka dhignayd ururka Spice-ga maartay oo marka uu markiisii horena asaaskeeda lahaa General Maxamed Faarax Caydiid ayna ku bahoobeen ururada saan sheegay kuwa hubeysan iyo kuwa aan hubeysnayn مثلا USC markii ayadu laba u kala jabtay oo garabna uu noqday USC SSA uu gaarayay Allahu naxariiste madaxweynihii hore madaxweyne Cali Geedi عفوا علي aragtay Cali Mahdi Maxamed Miyongale sidoo kalena isagana garabkii kale isagana dhinac kale uu jabay markii ay iska hor yimaadeen USC dhexdeeda waad garanaysaa taariikh ahaan ayaa isagana garabkan
wuxuu noqday garabkaasi la baxay magaca SNA. meeqa urur baa ku jirta SNA-da? SNA waxaa ka mid ahaa maalan ururada ugu maartay markaa muga weynaa SBM SNA oo Axmed Cumar Jees madax ka ahaa. waxaa ka mid ahaa maartay Maxamed Nuur Caliyo oo isagana SDM SNA ahaa. Allah naxariisto. anaga xaggayga markaad fiirisid sama SNA ayaan ahayn anaga. waxaa kaloo jiray urur isagana SNU oo maartay isagana oo banaadiri ahaa. waxaa kaloo jiray yaa madax u ahaa Taba Maxamed may qof baa ka horeeyay magartay magaciisa hadda waa ii gambiyey. waxaa kaloo jiray isagana xisbi isagana oo xataa isbuluu la oran jiray oo Burci Shaybe oo ayagana baraabo ma aragtay oo isagana dhinacaasi isagana kamid ahaa isbahaysiga. xaqiiqatan siyaasad ahaanna markaad fiirisidna xataa ma aragtay SNM ma aragtay markaa isagana marxuum ma aragtay madaxweynena markaa ka ahaa markii la aasaasayay gooni goosadka ay ku dhawaaqeen Cabdiraxmaan Tuur. marka laakiin isbahaysiga si dhab ah loogu dhawaaqay ururada kuwa hubaysan iyo kuwa aanan hubaysnayn intaan ay ahaayeen. kuwa kale xataa way jireen oo maalan oo USC le ah oo ayadana ka soo jeedeen dhinacaas oo hiiraan ma aragtay. markii dambe ayadana waxaa ka soo mid noqday isbahaysiga ku soo biiray maxaa la dhihi jiray SNM ta Koonfureed SSM oo isaga Cabdi Warsame Isaaq ma gartaa. adiga marna qaara soo galay ka baxay hadan ku soo laabanayeen. sidoo kale Ilaahay kuma samadiido waxaa jira urur siyaasadeed kale oo ayagana oo markii dambe xataa ayagana ay ku soo biireen Hilowle Iimaan iyo ma aragtay iyo rag kale Abdullaahi Geedi Shidoor hadda boqorka ma aragtay beelweynta ma aragtay madulooda yani aday yani rag baa markii dambe adiga si kala duwan oo siyaasad ahaan haddana markii dambe ilaa haddana salbalaar oo haddana isugu yimaadaan dhinacii kale oo garabkii haddana oo ay ahaayeen laftirkooda oo SSDF oo ayagana group ay ahaayeen oo Maxamed Abshir Hamaan iyo groupkaasi. laakiin isagana Maxamed ma aragtay Cabdullaahi Yuusuf oo isagana markii dambe haddana la iskugu yimid. adiga mar waliba waxba isbahaysigii ballaarnaa buu kaas ahaa. laakiin SNA ahaan oo intii hore aad soo sheegtay war maleeyahay waaye aakhirtaankii waxay dhalaysaa laftirkeeda haddana ururada haddana isbahaysi kale weyn oo haddana SRRC la yiraahdo oo haddana dawlad dhiskii markii dambe haddana la iskugu yimid Imbagathi ma aragtay. marka hadba ma aragtay marxalad ma waxaasoo dhan kala qaybsanaanta USC ayaa waxa uu ahayd sabab u ahayd oo xataa khad cagaaran la kala dhigay warta. tii carta markaan u soo noqono shirka markii dawladdii abaabuleysay ay casuumaadda idiin keentay maxaad seed u qaabasheen? waa su'aal muhiim ah. annaga ka isbahaysi ahaan markuu janaka uu meesha uu geeriyooday wixii ka dambeeyey Xuseen Caydiid ayaa watuu isaga maartay oo bedelay booskiisii la keenay. marka abaabulka waa ogeydo waxaa iska lahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo adduunkana ka gaday shirka xarta. laakiin wuxuu ahaa mid open ah oo furan oo qof waliba inuu ka qayb galo gacmo furan lagu soo dhaweynayay. marka inta badi marka ka qaybgalka civil society-ga way u badnaayeen. in yar ayaa waxa ka qayb galay ururadii oo hubaysnaa haddana isla markiiba haddana ka soo baxay oo sida RRA oo kale oo marxuum ma aragtay Shaati Gaduud uu hogaaminayay iyo in lamid ah. intii marka aan tegin meesha ma iska warqabteenoo mowqif midaysan miyaad ka qaadateen mise qolo walbaba iskeeday go-aan u gaartay? xaqiiqatan sida aan dareen markii dambe aan wax ka ogaaday aniga qof ahaan iyo intii la midka ahaydbo mar annagoo isu diyaarinaybo nala yiri
ka qayb galaynaa SNA ahaan oo wada hadal ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda walaalahana ee Djibouti oo Cali Cabdi Faarax markaasi uu garwadeen ka ahaa dalka gudihiisa dalka gudihiisa waa si uu wada qaabilay ururada waqtiga isaga hogaaminaya uu keenay anaga waxaan lagu wargeliyay shirkaas ma ka qayb gashay adiga oo isaga uu la yeeshay SNA-da anaga si toos horta waxa si official ahaan qaabiladeeda lahaa Germanki isaga mudamiina ka Hussein Maxamed Faarax Aydiid oo isaga markaasi ay ku helinayaan executive-ka ee maartay anaga marka gudoomiyaheeni wuxuu ahaa Sheekh Jaamac Xaaji Xuseen oo SNA oo samama gudoomiye oo ahaa gudoomiye oo ahaa garabkeeni xogeeyga guud Cabdikariin Axmed Cali baa ahaa ragga marka ugu cadcada Professor Ciise Maxamed Siyaad iyo maartay Allah kuma samadiide marka adiga dadkii go'aanka markii anagana loo soo gudbiyay ururadii isbahaysiga ka tirsanaa ayaa hal mar waxaan aragnay markii la idinku casumay intii fadhiga la fadhiyay baa la ogolaaday miya in la aadi doono adiga horta galabtii ayay wada fariisteen markii asaga mabda'iyan anagana loo sheegay la ogolaaday ayaa galabtii waxa yimid safiirkii masaarida iyo Xuseen Aydiid oo German ahaa isbahaysiga ayaa waxay wada galeen shir kaligooda shirkii ilaa iyo 2 saac habeenimo 8 ama ayaa la isla wada gaaray fiidnimo annaga ilaa iyo intaasi alaab xirxirashan ku jirnaa beri waa Djiboutiyeysanahay artaan ma artay isu diyaarinayna shirkaasi invitationka ee noo keenay habeenkii xataa idaacada ayuu ka hadlay saan xusuusto wasiirkii arrimaha dibadda Cali Cabdi Faarax inuu ka qaybgalkeeni iyo sida dadka isla markaasi lagu wargeliyay nasa wixii ka dambeeyay waxaan leenahay geediga hala furo ma garatay beri socod ma jiro waa la baaqday isbedelkaas marka waxaan u qaadanay inuu ku yimid wada hadalka haddana isla waqtiyadaasi wax aan ka fogeyn ayaa waxay baahiyeen idaacaduhu in Robert B. Oakley oo asagana safiirkii Mareykanka ee asagana arrimaha Soomaaliya qaabilsanaa inuu u ka degay Hargeysa asna halkaasi uu kula shiray ma garatay markaasi waxaan u maleynayaa inuu madaxweyne ka ahaa cigaal Soomaa SNM ayadana meesha ayadana way kaga baaqatay oo ayadana shirkii dhammaan marka waxaa isla wada qaatay wixii ka haraybo ururadii oo aan hubaysan marka gudoomiyihiina SNA Aydiid Xuseen Aydiid ma idin yeeray oo midin wargeliyay matqaan isbedelkii ku dhacay mowqifkii waa la baaqday ayaa protocolkiisii iyo sidii ayaga la isu gaarsiin kara fariinta ana wafdigii isu diyaarinay baan ahayn wafdi walibana waa loo sheegay waxaa la yiraahday wax safar la yiraahdo Britain ma jiro waa la baaqday waxaad ahayd qof siyaasi oo muddo ku dhex jiray matqaanaa maxaad isleedahay dowladda masaarida mowqifkii ay ka qaadatay Djibouti wax kaas ahaa miyaad leedahay inaan la aadin Professor Hawaii horta sideeda Soomaaliya oo la isku haystay weligeeda annaga ayaa ina is haysan u maleynayna maahane korkeena ayaa howl badan ka socotay oo dowlado fara badan ayaa waxay aad u danaynayeen arrimaha Soomaaliya dowladaha waaweyn farahay kula jireen dowlado kale oo ayaga wakiilo ka sii ah oo ayaga ku matalayeen saaxadda ma aragtay oo siyaasadda Soomaaliya ayagana wax ka karinayeen waa meeshaasi ku dhex jireen wax badan baa ma aragtay dowladdiyo markaasi hadda aanan kaligeeda intay u istaagto awood oo aanan lahayn inay wax ku dhisato ama ay wax ku ma aragtay meel mariso iyo shacabkii Soomaaliyeed oo la kala daadiyay kala qaybsanaan xoog leh meesha ay jirtay waxyaabo badan oo boogo oo markaasi haddana ay aanan la dhayin oo weli haddana meesheedii oo qof waliba farta gaaraysay ma garatay waxaasoo dhan iyo
foreign actorskii marka dadkii ayagana dibadda maartay hawsha wax ka waday waxaasoo dhan ayaa in dowladdaas kasoo bixi doonto oo markii dambena la banidi doono oo dadka shacabka oo iska rabeen dowlad inay helaan dalka waa la soo dhaweeyey sidii aday loogu saftay waa ogeyd min Balidogle ilaa iyo Xamar madaxweyne Cabdi Qaasim marka bilaash inuu madaxtooye geen waayo inay number 4 dhaafi weydo in wixii oo dhan laga dhigo wax aanan jirin gow iyo gash malada ma aragtay isticmaalayeen hogaamiye kooxeedyadii waxaasoo dhan wax la isla wada ogyahay oo qorshaysan bay ahayd waana midii ma aragtay dowladdaas ayada ka shaqeyn weyday akhiiran looma dhama dadkii talada ka go'i lahayd meesha kama qayb gelin la yiri ka bacdina la qaban qaabiyay shir kale oo la isku yimaado ayadoo tii madaxweyne Cabdi Qaasim isku day baa jiray oo madaxweyne Cali Mahdi ay ahayd waxaasoo dhan waxa waaye waa qorshe lagu burburinayo baa jiray oo dibadda laga waday aan ku noqono carta aan ku noqono maartay markaad banaanka ka fiirinayseen shirkii oo socdo aad aragteen la isu yimid waxaan ku radaa la isku ooyayo maxaan ku radaa dadkii qiiroodeen dad kala maqnaa isku yimaadeen sidee u arkayseen shirkaasi adiga iyo saaxiibadaad markaa ka sheekaysataan wallahi dad badan horta oo elite dad badan oo aqoon-yahan waxgarad Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda isugu jiraan siyaasiyiin aqoon-yahan culimaa udiin haween oo maartay dhalinyaro adiga bulshada qaybaheeda kala duwan waa meesha waa la aaday haraad si dowladnimo wixii la maray dhibkii si uu wado oo hal mar looga baxo haddii la heli karo isku daygaasi dad badan oo aad niyad sami uga qaybgalaya baa jirtay laakiin annaga xaaladdan qiimeynayna sababtoo isbahaysiga iskama aynan gelin annaga micnaan ku galnay waayo waxay u kala qaybsanayd koonfur gaar ahaan laga soo bilaabo Hiiraan ilaa iyo Kismaayo oo aad ku geysid SNA iyo SSA ma gartay marka adan مثلا shabeellaha hoose ka soo jeeday aniga si kasta oo aan iraahdo hadii aan ka mid noqdo isbahaysiga SSA madaxweyne Cali Mahdi hogaaminay hadalkayga meel oo aniga oo qiimo uu ku leeyahay oo aan oola tagay ma waayo shacabka aniga aan matalayo afgooyay degan yihiin iyo la weyn ma gartay iyo shabeellaha hoose in generally marka siyaasadaada meel adiga ay ka soconayso iyo dadka adiga aad matalaysid meel aad iyaga ama aad noloshaada adiga aad ku maartay maareyn kartid ayay siyaasaddu ayadu inaad iska indhala'aan meel iskaga yani waa inay dan adiga ku wada siyaasad awalba dambeed qofkeeda ayada mar waliba marka annaga inaan la shaqeysano oo aan wax ku darsano ilan dherigi baxal yiri wax lagu daray dabkii baxaya dab lagu darsana Soomaaliya marka annaga maadaama xisbiga balaaran iyo isbahaysiga ka shaqeynaya ee ka jiray maamulkiisa ka dhisnaa nabadgelyadiisii inta fara badan ee kulli ma waxaan ahayn anaga dad very powerful ku ah oo siyaasadooda ayagoon qori wadanin haddana lagu tixgelinayay deegaanka matalan afgooye ayaa maanta waxaa noo joogay isbahaysiga SNA in matala USSN ka soo jeedo matalan cirfaa joogay oo nin zaciim ahaa waxaa naga wada dhaxaysay wada shaqeyn mashaariicda waxqabadka waxaynu dhan waxa waay ragii waay Sheekh Jaamaca ilaa ay marka ilaa ay jilib u soconayay ayuu gaaray idaacaddii ma artay qaranka oo hadda oo ayada SNA haysatay ayaan wacyigeena taladeena ra'yigeena siyaasadeena waxaan haysanay fursado yani runtii oo ka sii balaaran ma artay isbahaysigii kale oo anaga garabka kale asagana ka mid noqday oo ahaa Arbow ma gartay mudane dalxa meeshaas weeyba Arbow wuxuu ahaa ninkii asaasay ururka ahaa ragii kale culayska lahaa maxaan ku raahdaa macaan oo kale ka mid ahaa Mawlid Macaani ka mid ahaa iyaga waxay jireen dhinaca kale jireen Soomaa of course marka waa lagu kala qaybsanaa iyagana waxay arkayeen maartay inay dhinacaas aadaan markaad ka wada sheekaysataan wax dad iyaga ka socday oo tagay carta ma jireen qaybtii kale haye Arbow waa ka mid ahaa ninkii Arbow wuxuu tagay carto ka qayb galay dadkii ku soo hungoobay buu ku jiray markay jareer weyne waxa la yiri marka hore 12 xubnood baan idin siinaynaa qaata ayagana waxay yiraahdeen maya حتى مدحوينا إسماعيل عمر قال لما هذه هكا قادو يباشا ديرات وحير هذا جرير وين ما نقونا 0.5
qowmiyad oo la mid noqon kara hawiya daarood digil imirifle iyo dir ma gartaya in la yidhaahdo waa aadaris iyo waa 0.5 iyo arrintaasi wax la qaadan karo maaha waddankan cadaalad darro ayay ula burburay dadkani waa dad gobollada Soomaaliyeed ee weliba inta wax soo saarka ee dadka lafdhabar u ah ummad sidan laakiin waxa waaye waxaa naga awood badiyay yaa soo jeediyay 12 waxaa soo jeediyey beelihii oo markaa iyaga kale ee Soomaaliyeed laftirkooda iyaga laftirkooda waxay isku sameeyeen way iskhiyaameeyeen group ka tirsan jareer weyne oo ayaga 12 marka ay siiyeen ayaa waxay arkeen beelo kale oo ka tirsanaa ama hawiye ka soo jeeday ama daarood ka soo jeeday oo lagu soo daray markaas waxay yiraahdeen nimankan beelaha ay ka tirsan yihiin annaga naman anfacayaan annaga iyo banaadir kaliya ayaa in beesha is qaadan karno tii marka waa laga faa'iideystay dad oo smart ah oo roots oo kale midna ay ka socdeen oo Generaal Hayd iyo magartay iyo ugaas Bashiir hadda oo asaga beeshanaad hadda ka tirsan iyo ragga marka ay ka socday midna rootska waxa way waa qoladan maartay xirfad maalka hadda ayaga loogu yeero oo inta badan ay yihiin madhibaan tumaal ilaahay ku Muuse dheeri مثلا yaxart yibirka ma gartay kuwaan iyo markii dambe group kale ay hadan ay israadsadeen ajuuraan reer ah xasan ma artay hadana kale hadana dad kale waxba la isku keenay ma gartay qoladii maxal dhijir garjanta Soomaali ma gartay waa la isku tagay ma gartay reer baraawe baajuuni waxaan oo dhan waa la isku daray waxa kuwaas waxa la yiraahdaa kul misal yiraahdaa waa qolada ugu sid fiican oo wasiiro haday tahay haday janaano tahay haday safiiro tahay haday gudoomiye ku-xigeenka koowaad hadda ayada meesha maamusho 3 sano ayaga ma aragtay ay ahaayeen beeshaasi muday baa 2 jeer soo noqday ana ugu horeeyay beesh jareer weyn ana ugu dambeeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Mbagaati ana la ii doortay wixii ka dambeeyay illa ma saarin ilaa ay hadan ayaga ugu liito oo xataa markaad fiirsid dawladda 4 qaybood bay u qaybsamaan beesha shanaad marka sidii loo qaybsanay 12 ka la soo bandhigay way diideen markay diideen ayaa hoostooda waxa laga abuuray team kale oo ayaga oo ay isu arkayeen hadii dadkan ay hawsha ay wax ka maamulaan dadkii ee soo dhisay arbo iyo mawlid iyo ayaga ma ka qayblaan mawlid markii waxa way asaga group caad uu noqday markii dambe isku dhaciyo ma aragtay USC laftirkeeda sanadii ay kala qaybsantay asagana wuxuu maray laakiin markiisii hore wuxuu ahaa macal arbo حاجة موليد حاجة إنور موليد يا شيخ جامعه أي غير جوهري أهين ما قرتي ما قرتي لكن أربون وفايس فيرسا إسوا أهين أربون وش ممكن سكسماي وها لكن أنا حواي شبه الله هوسه basically أنا أرنتي إذا وحي مركزي كسياسة دور كان قادنا وحي أيد ماشات أديك أذن كهور دكان لو ما جمعيه هذا وعدها وحن ربع وحيابها هذا lagu yaqaan noocan marka aan ku dhameystire nimankii 12 diidana shan baa la soo siiyay kuwa shan hoos laga siiyay waa aqbaleen waxaana ugu jiray markaas qariidi baa wuxuu ahaa ninka ku matalayay qoladii shirgudoonka ay ahayd ee carta oo asagana markii hore saaxiibo badan oo ku lahaa oo qoladii kacaanka barkee xasan abshir Allahu naxariisto salaad ismaan rooble ururka dhalinyarada uu kamid ahaa qariidi meeshay ku soo darsadeen ayaga qoladii marka beesha shanaad qariidi ba madax ka ah la yiri shir gudoonka ugu jiro ayagay isku hoos maartay galeen nimankii 12 maya annaga nooma cuntanto taagna xoogayarna garab ay ka helayeen oo dhinaca maartay madaxweyne Ismaaciilna uu dhaha qoladan ma aha maartay sida idinka aad rabtaan halaga daayacad buureedka beesha direedna sidaas oo kale ay la qabtay laakiin nimankii kalaaba hadde ayaga hoosta maartay laga siiyay ciyaarta maartay la yiri idinka qaatan nimankan haday diidayaan maxaa ka rabtiin shanay bala soo careen nimankii 12 diidana waa meesha arbow la yiraahdo xataa stress ku soo qaaday uu dhintay arta waxa ay caan ku noqotay marka 4.5 taas inay maxaan ku raahdaa 4.5 xataa la wareejinay mar la yiri aadaris la yiri war aadaris Soomaali ma ahay ka dhigan tahay la yiri aadaris hataa wiil la siimay waxa la yiri adduunka hadda waxa masqulaha iyo marka meelaha la maray airport iyo waxa ku qoran ladies maartay lady ama male maartay ama female
ama markaasi waxa lagu soo darayaa la yiri hadda others marka waxaan ninahay naagnahay waa iska garan kartaa marka meeshan gef kala ka soo baxay leeyahay awal Soomaalinimada ayaa others ay macnaheedu ay ahayd dadkii ilaa Hindidii iyo Baakistaankii iyo wixii 60kii baarlamaanka ku jiray kuwaas la dhigi jiray carabtii others marka waxa la yiri may haddana wax loo fikiray waxa ay meeshan had naga dhaha markaas teeba koowaad labaadna waa tuba tee saddexaad atee afraad shanta afarta kale ma artay ayaga ma loo kala saaro ay number la kala siiyo waa wax oo dhan iska khiyaali dad badan waxay yiraahdaan in qabiilkaas wax lagu qaybsado carta loo yaqaana oo meesha lagu rasmiyay way laakiin waxay ka soo bilaabatay soo daray ka soo bilaabatay adiga soo daray ma joogtay soo daray aniga ma tagin laakiin policy ahaan banaadir iyo waxa kaliya laga aqoonsaday iyo waxay ahayd mid ayaga Arbow ay ku dhaganaayeen waxay ahayd marka Raajis oo banaadir hogaaminay iyo Arbow marka sama aha waxa level loo aqoonsanaaba beel ma artay oo inta ma artay waa banaadir iyo waxa marka Ruutis iyo ma jirin iyo ma artay kulmis qoladan hadda la yiraahdo marka sida awooda ayaga waxay ku mintidaayeen xisaabtii soo daray waa inaan at least anaga iyo banaadiri aan ku kala qaadanaa numbers oo anaga markaas annagan aan u noqonaa hormuud laakiin waa laga tactic badiyay ma garatay oo laakiin dad aan tayo lahayn oo markii horeba qaarkooda markii laga reebo qoladii wax diidanayd kuwa kale waxay iska hayeen kuwa rabish ma garto ayaga maartay iska soo qaatay oo ayaga ay ka fikirayeen kaliya intay dadkan maartay idinka ay joogan idinka fursaday idin tahay maartay qaata wixii la idin siiyay golihii lagu dhisay soo daray lagu dhisay seeb u qaybsanaa ma xasuusan kartaa maartay sidii loo kala qaatay golihii soo daray xisaabtan 61 ee hadda lagu saleysay waxba lagama bedelin average kale kordhay moogtahay markii 275 ee noqotay Embagati ayaga meeqay ahayn 200 xildhibaanada ee laga soo dhisay Carta less than that waa ka yaray xoogaa marka numberkii anaga xagga 500 adiga lixay soo qaateen anaga hal leen noo kordhayno xisaabta kulli waxa laga soo minguuriyay waa Carta 4.5 حق لما رأي حلال الرواقي وحاسو دن iyo kulli waxa way waa muntalaq yani an maartay mu'tamar waxa way soo dar markaad fiiriso watii golol la sameeyay moogta oo madax wareeganaysa mataqaanaa loola marka soo dar waxa lagu bilaabay mataqaanaa inaan hal madaxweyne uusan noqonin gudoomiyaal wareeganaya maartay gudoomiyaal wareeganaya kaasi waxa way ama Arbow ma ku jiray markaas madaxweyne Cabdiqaasim umba maartay mise waxa joogay markaas Arbow buu ahaa mise wuxuu ahaa Mawlid buu ahaa Mawlid adika wax oo hatta gobolka Banaadir markii ay Qaahire ay ka yimideen shirki Qaahire lagu qabtay waxa lagu soo go'aamay moogtay in wareegtay inay u noqoto madaxweyne markaas Cabdiqaasim afwan madaxweyne Ali Mahdi iyo Xuseen Caydiid ma gartay ko German wax la yiraahdo soo baxay ko German ma gartay la gudoomiye yaal marka sidii shantii SRRCD ee maartay ee golaha sare oo kale umbay ayaga laakiin tan hadda rigla ayuu ahaa madaxweyne Cabdiqaasim waxaan rabaa inaad cadayso midaan oo soo daray shan qof baa waxay ahayd gudoonka soo daray waxa markii carta ay tirino sorry waxa ma ka wada waxa laga yaabaa in afkayga soo daray shanta markay ahaayeen shantaas ba ku jiray ninka la yiraahdo ya ku jiray ma Arbow ahaa mise wuxuu ahaa Mawlid baa jiray Mawlid iyo Arbow markaasi Mawlid waxa lagu kala leexday SRRC-da markii asagii Caata asaga uu raacay oo Caatana iyo markaa Qanyare iyo group SRRC Nakuru way la bixin mugtahay SRRC soo daray shantii gudoonka ma galay baan ka wadaa xaqiiqatan ma xoog badnayn adiga waa iska waxa soo jeedin baa jirtay mugtahay ma ahayna wax ma shaqeynin laakiin soo jeedin laakiin way qabteen bilbil bay u qabanayeen oo la yaqaanaa laakiin asiga ma qabanin Arbow ma qabanin intay sanba ma artay wareeg oo san bilaabaninbo waashu waa dhexday ma artay intaan la soo gaarin bay laakiin waa lagu qoray barabi adiga qorshaha waa jiray waa la soo jeediyay laakiin ma dhaqan gelin ma gartay ma dhaqan gelin waxa talooyin fara badan baa jiray laakiin inta shaqeysay oo hadda markaad fiiriso gadaal markaad u fiiriso shirki Carta maxaad ku qiimeyn lahayd waxyaabaha ugu waaweyn oo laga faa'iiday maxay ahaayeen muxuuna ku liitay oo aad wax ka sheegi lahayd xaqiiqatan annaga Soomaalida hadaysan yani laftirkeeda wax aan ka baranin wixii la soo maray maalin walba waxa lagu jirayaa wixii shalay dhibaatada keenay
taa waxaan uga gol leeyahay bilowgii horeba cali mahdi iyo caydiid haddii midkooda tanasuli lahaa ama cali mahdi madaxweyne loo tanasulo oo isagaa bilaabay oo kow carta ka hor ee la tagay Djibouti maxamed abshir iyo kulli xataa Erdogan waa ku jiray uu tagay ilaahay kuma samadiida waxay ogolaayeen xataa caydiid cali mahdi inay isxigsadaan annagana lagu yiri Suudaan intaan tagnay waa la idin ogol yahay idinka ayagoo nagu eedaynay inay dhahayaan waliba waxayna yiraahdeen aanan afkooda ma artay ee Suudaan wasiirka arrimaha dibadda isla markaana wakiil ka ah al-Bashir iyo Turaabibo ayaa waxay yiraahdeen nimankiina hawiye maxay isku haysataan annaga kala soconay markay qaybna madaxweyne cali mahdi baa groupkiisa ay ahaayeen oo SSA qaybna annaga ahayn 1995 martay oo annaga Cabdikariin Axmed Cali hogaaminayo qolaba mar baa la qaabilay waxaa nagu yiri Turaabi baa nagu yiri wasiirka arrimaha dibadda nagu yiri maxay isku haystaan caydiid cali mahdi miyaynan ilma adeer ahayn miyaynan hawiye wada ahayn miyaynan hiraab wada ahayn anaga dadaa ku dhex jiro dadkii madaxa la isu gelinaya kama waxaas ma jiraan SSD DF ma idin haysato Soomaalidii kale oo daarood ma idin haysto reer hibil ma idin haystaan reer hibil ma idin haystaan idinka is haysto waxa uu heshiin laadin Cabdikariin oo nervous ah ereygaas kaga dhagan tahay hadda koona wareysi aan ku bixi amareynaya hotel Hilton yiraahdaan seexanayni asanseerka maartay liftiga ayaa iskaga hornimid annaga iyo Allah yarxamu madan cali mahdi Cabdikariin waa salaame madan cali mahdi kaftanka bilaw wuxuu yiri Cabdikariino meeshan maxaa dhacay ma waxaan joognaa darbigii Germany oo kala baray Bonn iyo Berlin meeshan Suudaan way ma la isla wada hadlo wuxuu yiri maxaa igala hadlaysaa aniga adiga adeerkaaga wada hadlo idinkay Soomaali idin darban tahay idinkay Soomaali idin dabran tahay idinkay maartay Soomaali markaas uu heshiiyay idinka ilma adeeray anaga waxba maartay aan ugu soo darsanin xataa markii dambe Turaabi baa wuxuu yiri cali mahdi iyo caydiid aniga waxa ila gardaran caydiid Cabdikariin wuxuu yiri xoogaa wuxuu yiri waay waxaan gardaranay annaga wax waliba ogolna Cabdikariin wuu soo halgamay caydiid wax allaale wixii isaga maanta hataa tanazul la yiraahdo wuu sameeyay dekadan markii hore ku yiri wasiirka dekada anaga haysanaan aan waqti ay cusub markaas jawaabta la siiyay xaday waxaad haysatiin rasow cali mahdi tiimkiisa ma haystaan dekadii qadiimka ahayd markaas aniga military ma ihi laakiin waxaan ogahay 20 kilometer ciidanka kale u fadhiya ma dhihi karo meeshaas ana haysta goobtaas waa artillery madfac u wareey duu tuuro uu ku dhacayaa buu yiri idinka bastoolada isku ceyrsan kartaan sidee xamarku kala haysataan xamar waa isla wada haysataane wax la kala haysta ma jiro xagaan markaan tagnay maxaan la kulannay inuu yiraahdo cali mahdi muxuu maartay ugu deyn way caydiid markaas sidaan uu justification kii u bixiyay ana head of delegation kii Cabdikariin ahaa Axmed Cali ninkan wuxuu yiri waxaan u leeyahay u qaadanin caydiid inuu soo halgamay waa loo yahay caydiid waa soo inuu geesi yahay inuu kaaye kulli laakiin waxaan u leeyahay wuxuu yiri mataqaana wuxuu yiri caydiid sababtaan u leeyahay waxay tahay yiri الهيبة تعرف صاحبها هيبة من كذا ويتقانا ما بقى بهنو عيديد المنحوين اللي يراد ما بقى بهنو ير ما قرت سيدي سو حكوي هي من عالمي ما قرت عيديد هذه اللي يراد قرت ما أنت أصلا مركز وحو نتصينا يا وحن انقلابك كده عي السودان البشير جبهة الإسلامية والترابي أصلا وهنيك قرشها الدجي ودنك مدحوين قرصون واي ما قرت laakiin magaca waxa wada al-Bashir laakiin isaga ninka ee baasha dhan matoorka dhan saaran way mashiinka caydiid marka wuxuu baheli karaa marka fursad madaxweyne kaliya ee aanan ahayn ka balaaran inuu kula dhago maartay oo labadooda ay isku qabsadaan maba ahayn meesha uu naga tusinaya waxbaad aad ku ifinaysaa baan maleynaa sheekadaasi markaan gadaal ugu noqono artaan qiimeynayno maanta aad gadaal u fiiriso maxay ku fiicneed in loo daayo way meeqa sano soo dhaaftay 4 sano ama 5 sano xataa haduu fadhin lahaa meeqa 5 sano ayaa naga luntay 4 sano 5 u qiimo meeqa waya hadduu madaxweyne kasta yimaado waqtigiisa hadii loo dhaafo oo wixii wadanka shalay systemkii ka xumaaday kan hadduu qurxiyo uu wanaajiyo ma aysan dhicin kiiba kii ka horeeyay in loo hadda yiraahdo wallahi kaasaa wadhaamaya kan kii hore ka sii roonaya
annagoo dhan waxaan noqonay dunya khabar kaaga ma gartaya marka way fiicnay dad shalay la sii qoomamay liirad wallahi shalay hadii saan la yeeli lahaa haddii maanta markay annaga Ethiopia sharaftay ayaga ay isku bedeleen inkastoo dowladana ay wax ka wadeen waxaa markuu Mengistu uu meesha uu ka baxay qorshaysnaayeen waxayna ku heshiis ahaayeen mabda'a ayaga ay ku socdeen waxay ahaayeen dad ajanda leh meeshan bila ajanda la socday ninka la ridaayna wax loo ridaayay ma ajanda ma jiro systemkii bedeli lahaa iyo qofkii leadershipkaasi ee ayaga ay waliye ama artay ka dhigan lahaayeen ma artay hoggaan ay ka dhigan lahaayeen ma qorsheeda nin walba waxa lagu heshiis yahay Dr. Baafa meesha aan ka saarno yaan ku bedelnaa ma jirto marka idinka hogaamiyaashii maxaan ku raad kooxaha ahaa meeshaasi inaad tagtaan waa adideen 10 sananaad wadanka idinku idin xirnaayo la idin sugaayay mataqaanaa marka shirkaas qabashadiisa mas leedahay inkastoo aad banaanka ka joogteen wuxuu ahaa shir Soomaali badbaadiye wala saan ku sheegay horta aniga markaad diideen markaad tiri waxay ku soo dhacday walba professorka maxuu dhigay oo la idin diiday inuu yiraahdo maxay maskax Soomaaliyeed looguma baaqanin shirkaasi sida aniga aan dareemay aragti banaanka ka timid oo loogu dan lahaa in la fashiliyo shirkaas ayaa shaqaysay faa'iidan lagama gaarin ma gartay laakiin kama behind the cartel taladas waa diidi karteen Soomaaliyeed haddaad tagtid aniga haddaan baxo aniga aan tago meel SNA USC meel ay diiday maxaan ka keenaya aniga afgooyada iska dhaaf meeshan inta aniga aan qaad lama gaari karo waxayga ma aragtay kilometer 5 ma aragtay maxaan ka wadanaa SNA draftskeeda SNA taladii loo soo jeedi waa iska diidi kartay hadda waxa way siyaasad khariji ah ayaa meesha tiilay oo kulli ilaa iyo waqooyi galbeed ee maanta ilaa ay cigaal la daadiyay ma aragtay dawladda waaweyn baa shakadan diidanaa Soomaa gabadhii uu salaami waayay asaga xataa maxaa la iska yaani la yiri ma aragtay madaxweyne Abdi Qaasim xataa Soomaalida ma aragtay sibay magac bay u bixisay marka adiga waxa leedahay hogaamiyaasha kooxaha ee barigaas jiray wax diiday qaarkood waxaa kulaha saameyn kulaha quwada kale too shisheeya saameyn kulaha ayadoo dhanba si hoos iyo kor waxa loo sheegayay al-islaax inay wadato ma gartay marka barnaamijka dhanba maartay ashaasa meesha dhanba maartay ayaa diiday maartay in la tago oo la yiri meeshaasi wax fiican kama soo socday ka jooga wadankana dadkii markaas liiga u soo daadiyay ee rafaad iyo mashaakil iyo wax waliba waxa la yiri iyaga madax loo weynayay shir dadkan ay ka maqan yihiin wax soconayo ma waana dadkiina waa laga sameeyay Soomaa dawladii waa la soo dhisay madaxweyne Abdi Qaasim waa yimid rabitaankii shacbiga waa la muujiyay hogaamiye kooxeeda ay yiri goobiga shimada markaad hadda gadaal u fiiriso sida ay ku imaan kareen madaxdii markaas horjoogay ururadii markaas socday siyaasadda gacanta ku hayay sida kaliya ay ku tagi kareen shirkaasi ay kaga qayb gali kareen maxaad is leedahay maxay noqon kartay adiga sidii sabab ama buur aho ama buur ku tiirsnaa mugta ururadii hubaysnaa deegaamada annaga aan matalayn oo ayaga gacanta ku hayay siyaasad ayaga aanan ogolayn annaga ma geyn karnaa way afgooye ma gartay waxaan ka wadaa SSDF TSNeeda waxa daba kale isku dirtay SSDF waxa lagu soo jiidan karo oo lagu keeni karo arta dhinacaas in laga sameeyo dawladda Djibouti ay sameeyso dadkii qabanqaabinda gacanta ku hayay sameyn lahaayeen oo isleedahay Allah hadii saas yeeli lahayd qoladan waa tagi lahayd ma jirto campaignkiisiba mise waxay kaga xirnayd asaga campaignkiisiba badi wuxuu u badnaabo in laga maartay laga dhex bixiyo يعني ودبرنانشها ay u dabran tahay ummadda Soomaaliyeed hogaami kooxeedyad dawladnimo looga saaro laakiin meeshan dawladnimo ma shaqeynaynin waxa shaqeynaysay ma gartay muruqa shaqeynay ma gartay ninkii xoog loo waxba gooso dadka qaar waxay leeyihiin haday imaan lahaayeen Djibouti markaasi oo arta shirka ka qayb gali lahaayeen hogaamiyaashii kooxaha malaha dawladii la dhisay ma dhisanteen ba maartay waxay ku dhamaan lahayd sidii kuwii hore kale taasi waxa daliil ku ah in bagaati Soomaali kaliya anaga inta isu tagnay isu shir gudoominay sida arta oo kale
miyaan annaga ma aragtay dowladdeennii meesha ka soo baxday ayay ku timid 2 sano iyo bar 2 sano iyo bar annaga waxaa dhisayay dowladdeenna dowladaha frontline stateska Djibouti Ethiopia iyo Kenya oo awalba dadka isku haystay qeyb ayaga wakiilo ka kala ahayeen maartay dowlado kale gadaashooda ay fadhiyeen ayaa isku haystay arrimaha Soomaaliya kadibna waxaa meesha markii intaba la isla wada helay hogaamiye kooxeedyadii dowladdii Djibouti lagu soo dhisay iyo beeshii caalamka intaanoo dhan oo all inclusive oo loogu magac darayo oo waa loo dhan yahay ayaa sidaas Embagati lagu geeyay adiga waxaad ka qayb gashay shirkii Embagati Soomaa bilowgiisii ilaa iyo dhamaadkiisana aad joogtay bal isu keen barbar dhig mataqaanaa Embagati iyo Carta maxay ku kala duwanaayeen wax badan ay ku kala duwanaayeen Embagati waxa isku yimid kooxihii hubaysnaa dowladihii isku kay kor haystay ama hadday yihiin kuwa gobolka ama hadday yihiin kuwa maartay dowladaha waaweyn ama ururada caalamiga ah laakiin Djibouti waxay ahayd hal dowlad oo Soomaalinimo ugu damqanaysay oo Djibouti oo holwada ayada ka ahayd maartay garwadeen majority ergooyinka ka qayb galay oo sacboolay u badnaayeen oo dadka ay matalayaan aysan ahayn dad ayaga kalsooni waxay soo qaadan ka gadi kara oo geyn kara balse laakiin meesha tan waxa ay yiilay aqoon waa tili rabitaan waa yiilay Carta shacabka Soomaaliyeedna sidoo kale dowlad way u oomanayeen way sugayeen laakiin waxa soo dhan waxa ka dhigay habaan manfuuran awoodii marka ayada hubaysnayd dal iyo dibadba ma artay oo ayada ay isku xirnaayeen waxaanan iyaga aan isla meel dhigin inaan Soomaaliya dowlad ahaan meesha ay ka soo bixin dadkii baarlamaanka soo galay oo Embagati ka soo galay waxay ahaayeen dad ay saameyn weyn ku lahaayeen go'aanka ay ku soo galayaan qabqablayaasha meesha joogay tay ahaan baarlamaankaasi iyo baarlamaankii Carta markaad isu barbar dhigto keebaa kula roonaa waxa waaye mahmaa carbeeda waxay leedahay aakhiru dawaa alkay yani daawo waxa ugu dambaysa hadii la isticmaalo waxa dab ma artaya waxay ahayd wixii lagu gubtay in la isku daaweeyo ma gartay hogaamiye kooxeed ayaga in lagu daaweeyo cudurkii oo shalay oo ayaga sabab u noqday in dal burburo in Soomaali heshiis la'aan la iska soo horjeesto waxa soo dhan marka iyaga waxa ay yiraahdaan ma artay markay sida xoolaalay markay heshiiyaan maxay la jiray xoolo biyo ay cabayaan Soomaa hadii ayaga marka la siiyay awoodii oo la yiri 24 saxiixayaal horta marka uu horeyso go'aan ay isla gaaraan ayaa shaqeynay ururadii hatta kuweeni aanan hubaysnayn aniga waxaan rabaa labadii baarlamaan inaad isu kay barbar labadii baarlamaan shaqada u soo socda haye 24 kaasi horta waxa la yiri iyaga waa lama taabtaan shuruud aan bay soo galayaan baarlamaanka waxa la yiri choice-ka ama selection-ka awood bay ku yeelanayaan oo xildhibaan kala soo xulayo Carta hogaamiye kooxeedyada oo aan ka qayb galin waxa haddana inta badan haddana tiilay odayaal dhaqan oo rasmiyan oo awood ku leh beelaha ay matalayaan ma tagin qaarkood waxa way cimaamad leh madaxa loogu duubay bakoorad lay qaateen waxa way reer aan iyaga aan ma ka haysanin kalsooni ayaa waxay yiraahdaan aniga suldaankii reer hebel baan ahay aniga odaygii reer waxaan ahay aniga ka qabiilkii reer hebel baan ahay wixii ay soo qaadeen meel ay geeyaan qabiil ay ka gadaan awoodooda ma la lahayn laakiin kuwan Embagati maxay dheerayeen waxa la yiri genuine traditional leaders iyo genuine hogaamiye kooxeed asaga meesha dhabta ah maxaa marka hadan ay xoojinay saddexdii dowladood arrimaha Soomaaliya iyaga wakiilka loogaga dhigtay iyo dowladii gadaal ka fadhiyaybo oo Ethiopia oo ay wakiilkeedu joogay Kenya oo wakiilkeedu joogay Djibouti oo wakiilkeedu joogay oo safaarada matalayeen oo waliba dadna safaaradaha ay ka sii sareeyaan wasiir arrimo dibadeed
sababtoo waa ogtahay Djibouti cali cabdi faarax baa u ahaa wasiirka arrimaha dibadda oo wakiil dowladii Djibouti Kenyan wuxuu ahaa Kalonzo Musyoka markii dambe Wetangula ayaa nin la yiraahdo ayaa ahaa laakiin Kalonzo Musyoka ayuu ahaa base-ka dadkii soo dhisay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia siyo masfin buu ahaa safaaradahana marka waa sidaasay u kala qaybsanayeen special envoy-gana yuu ahaa Imbagati markii hore Eldoret markii laga soo guuray Kiplagat buu ahaa ma gartay oo asagana Kenyan ahaa IBF ta ayaa markaasi ayaa lacagta maalgelinaysa ayada bixinaysa hoteelada jiifka cuntada waxa soo dhan kulli go'aanka marka la wada gaarayo intaano dhan ayay isla wada gaarayeen hal hogaamiye kooxeed marka Ethiopia ay rabto in ayada ee shirkaasi danaha ayada ay ka leedahay inuusan shaqeynaynin ay arkayso hal kamid ah مثلا SRRC دي waxa kamid aha Maxamed Umar Habeen baa kamid aha Maxamed Dheere Shaati Gaduud baa kamid aha Sheekh Aadan Madow baa kamid aha magaciisa waxa kamid aha Xuseen Caydiid baa kamid aha Ilaahay kuwa masamadiida Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil baa kamid aha yani waxa way a number big number ya kuwa hubaysan baa leeyahay adiga Maxamed Dheere hay banaanka maartay shirka waxa way Maxamed Dheere iska baxay Johor iska aada ilaa Maxamed Dheere uu kiimaad shir lama dhaqaajinay qolada kale ayadana saas GA-day la bixin markii dambe xataa groupkii Ismaacaata iyo ayagana ay ka koobnayeen Allah u naxariista Caato Xaaj Muuse Suudi Umar Finish ya Bare Hiiraale Mawlid Macaani talada ama ay ku joogaan meesha ay kaga tagayaan dad kale goynay ayaga qolo waliba qolo kale ayaa u dabaqtamayso haddii nin ka tirsan SRRC uu ka baxo Ethiopia waxay leedahay la joojiyo haddii qof ka tirsan maartay dhinaca dowladii maartay ayadana la soo dudumiyay ahaa maartay carta iyo wixii kale oo ayagana ayada markaas la halmaala ayagana waxa way dowladda Djibouti waxay leedahay la joojiyo haddii Nakuru ma gartay groupka Caata iyo ayagana mid un asaga la rabo aduu ka baxo oo ayagu markii hore farsamada lagu bixinayo isla wato waxa leeyahay hore looma wadayo shirka stop wala joojinaya conciliation-kii maartay dib u heshiisiintii way joogsanaysaa 2 sano iyo bar أنا واحد سعد نوش شيء أنت وقت كله مني علي عبد الفارح أيا وحير حد يراد هشين إنسان محيي أول أنا نكركي إنك كويس إنه هشيس إنما هين هذا أنا واسو هشين إذا كانوا هشين إنسان سعد نوش شيء قرما قرط ساس ده هاي وهذا end of the market reconciliation كمركو لمانا أو كدبنا دولتنا على اسميسو وأنا مركزي وإلنا لي هذا market هذا بحرلما هنكي حكومة دي وحي يordن madaxweynihii waxa soo dhan markaas hal mar shalal korkeena la isku haystay marka waxay ay kulli meel isla soo wada dhigaan odayaashii janwiinka la keenay dhaqanka hogaamiye kooxeedii waan halka maqneen laakiin odayaasha maxay ku lahaayeen awood miyay ku lahaayeen xulka ku lahaayeen waxbay ka saxiixayeen saddexdooda ay soo saxiixaysay saxiixay laakiin awoodda kama dambaysta waxa iska lahaa hogaamiye kooxeedka iska leh laakiin hogaamiye kooxeedka marka hore odayaasha markay imaanayaan dad ay odayaal ay isla socon karaan isla shaqeyn karaan ilaa odaygana dhaqanka kaligiisii wax ma wadi karo hogaamiye kooxeedkana qabiil uu meeshii 4.5 wax lagu qaybinayo asagana qabiilkii ma inkiri karo marka asagoo heli kara oday dhaqan oo genuine ah oo isla wada shaqeyn karaan waxay isla qaadaan ay reerka wada geyn karaan ama deegaankii wada geyn karaan meeshaas laga arkay iyo caalamkii oo u kaalmeynaya oo sidaasna ay ku timid weeliye dhan ay carta loo diiday oo madaxtooyada ay ka mid tahay inuu Cabdullaahi Yuusuf u fariisto